barnaamijka xusuus reeb ama xasuus reeb waa mid aan ugu talagalnay inaanu ku ururino dhacdooyinkii taariikheed ee ka dhacay arlada geeska Afrika maadaama 60kii ama 50kii ama 40kii sanadood ee ugu dambeeyay waxyaabo waaweyn ay ka dhaceen arlada Soomaalidu ay degto ee geeska Afrika waxay noola muuqatay in barnaamijka xusuus reeb ama xasuus reeb aanu u bixinay aanu ku soo ururino oo kolba aanu ugu yeedno cid aanu ku tuhno in goobjoog ay ka ahayd ama ay wax ka xasuusan tahay waxa in badan aad maqasheen UFO ama dhalinyaradii ama dadkii mutacalimiinta ahaa ee bilaabay mashruuca iska wax u qabsadaa ee cisbitaalka Hargeysa 1980 horaanteedii taasina ay dhalisay in la xidho ilaa 20 kamida dhakhaatiir macallimiin iyo ganacsato dhammaantood dad mutacalimiin ah oo hawsha iska wax u qabsada ka bilaabay waxaana xarigaasi u dhacay 1982 su'aasha bahada aynu isweydiinaynaa waxa weeye UFO maxaad ahayd dhalinyaradaas maxay taa ku bilaabantay ma laga yaabaa inuu noqday bilowgii kadeedkii ugu weynaa ee ka dhacay geeska Afrika ama fidnadii ugu horeysay ee horisay Soomaaliya dhibaatadii ka dhacday sanadii intaasi ka dambeeyay barnaamijka waxa martiigu mid kamida raggii taariikhda ama dhacdadaasi adag goobjoogka ka ahaa ee wax ku lahaa waxa weeyaan Baasha Cabdi Yuusuf oo ku magac dheer in Cabdi Yare Baasha waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa halka ayuu wax ku bartay markii uu dugsiga hoose dhexe iyo ka sare oo Faarax Omar oo Hargeysa ka baxay shaqada qaranka ayuu qabtay baydhaba ayuu ka shaqeeyay dabeedna waa uu dhoofay oo wuxuu tagay dalka Saudi Arabia muddo markii uu soo shaqaystay waxa uu ku soo laabtay magaalada ku dhashay Hargeysa waxa uu ka mid noqday 1982kii niman baac mushtar dhakhaatiir iyo mutacalimiin macallimiin u badnaa oo ay iska hor yimaadeen dawladdii militariga ahayd ee markaa ka talinaysay magaalada Hargeysa 7 sanadood in ka badan ayuu ku jiray xabsiga caanka noqday ee la yiraahdo 20 jir oo ku yaala baydhaba iyo xudur inta u dhaxaysa waxyaabihii lagu xidhay sababta keentay iyo dhibaatada wixii ka dhashay ayaan jeclaan lahaa balbaashe inaan nasiib wanaag anagoo isagoo socotaa ku helay magaalada London inaan wax ka wareysto baashe marka hore barnaamijka xusuus reeb baa la yiraahdaa kusoo dhawow barnaamijkayga marka ugu horeyso kusoo dhaweynay studio on cable TV taariikhdaada yare kooban ee hore ee aan ka bilaabay iyo inaha adiga naftaada ku saabsan maxaad ku dari lahayd kale waxaan ku dari lahaa markaan xariga ka soo baxay waxaan markii ugu horeysay tagay Saudi Arabia xaj u raacay oo sida qoreer u bixi karay wadanka marka ahayd oo xamar ka baxay dabeetana Djibouti baan xoogaa joognay waxaan galay waxaan u tagay dadkii magaranaysa qaxootiga ah waayo magaalo dhan aan u dhisan baan ka tagay magaalo dhan hadana Ethiopia isla gaari doonaa halka waxaan ka wadaa waxaad bilowdeen Hargeysa ka bilowdeen adoo baac mushtari markaad Sacuudiga ka soo noqotay koox aad saaxiibada ama isku kalaas ahaydeen ama isku uun reewqooyi ama reer Hargeysa ama isku ahaydeen ama shaqaalaha ahaadeen baac mushtari hadda waxaad bilowdeen mashruuc la yiraahdo iska wax u qabso fidno dhale mashruucaas UFO loo bixiyay UFO maxaa tahay sheekada aad bilowdeen waxaad ku keenteen waxaad iska hortimaadeen dawladda bal hadda waxaad ka xasuusato intaynaan xabsigii iyo maxkamadii iyo kadib gelin maxaad ka sheegay waxa weeye horta kelmaddan la yiraahdo UFO marka hore ma aha urur sideedaba waxa weeyaan ururku waxa weeyaan UFO waa magac waraaq la qoray oo suuqa lagu daadiyay ama jirrada aad oran karto oo ay kamid ahaayeen labada nin oo kamid ah groupkeygii la xiray ay qoreen marka dadku magaca UFO jirradaas ahayd ururku in such dadkeygii la xiray iyo qolooyin kale dibadda joogayba muu ahayn wax magaranaysa ururaho ama magac leh ama madax leh ama kala hoose leh wuxuu ahaa kacdoon markaa wadanka oo dhan ka socday anagu aanu ka dhignay inaan magaranaysa wax practical oo masalan gacan ku taabasho oo aad si dadka loo dareesiin lahaa in meesha dhibaato jirto iyo at the same time aanu isniin bal wadankii wuxuu qabta hadii dawladii qabtay
inaanu tusno dadku inay iyaguna wax qabsan karaan at the same time nin qof waloo kastoo annaga naga mid aha iyo sidii markaa ummadduba ahayd la diidanaadu markaa maamulkii jiray markaa ufo magaca gruubkan unbaa la yidhi la xidhay laakiin ma ahayn uf marka hore waxa ahayd urur ma ahayn waraaq qoraal ba ahayd oo ay qoreen laba nin oo nin la yidhahdo maxamed baaruud iyo axmed maxamed yuusuf jabane maxay ka hadlaysay markaa waraaq waxay ahayd kacaandiid way waxaa masale ay ku qoraysay dhibaatooyinka waddanka markaa ka jira gaar ahaan hargeysa way markaa taasay tabinaysay dadka gaadhsiinaysay waxaan maleeyahay haddaanan qaldanay ilaa 3 kobi baa ka soo baxay markaa taa ufadii oo dadka loo qaybinayay waa la daadinayay ma dariiqa markaa qofkii helaa isagu ma akhrisanayay markaa kooxdiinan iska qabsada la baxday cusbitaalka hargeysa ka bilowday maxaad ku keenteen sheekadan iska qabsada dowlad baa waddanka joogtay ma idinku ma iska ikhtiraacay sidaad ku dhaliseen mise jamciyad siyaasi ahoo doonaysa inay ma garanaysaa dowladda ka hor timaado oo sidan dee marka dambeba laydinku xidhxidhee la sheegay ah ayaad ahaydeen oo wuxuu samaysteen waxa weeye marka ugu horeysa waxay ahayd waqti infaaq xasaasi ama kala guur ah xamar buuq baa ka jiray waad maqashay ismaaciil cala bukare iyo cumar carti la xidhay iyaga laftooda waxbaa xaggaa ka socday hargeysa waxbaa ka socday sacuudi arabiya waxbaa ka socday london waxbaa ka socday meel walba kastoo soomaali joogtaba khaasatan reer waqooyiga waxaad mooday in markaasi in badan lasoo hadlay oo ahayd markii arrintaasi hadalka inta laga bedelo marka annagu waxaan isku qancinay war in badan baynu hadlaynay horta inagu maxaynu qaban karaa way dabeetna waxaanu ka bilownay dhakhtarkaasi waanu ka shaqaynay waxaa kaloo la sameynay masala qolooyin wifuuda oo noo yimi oo wasiire ahaa oo aanu markaa la doodnay arrimahaasi markii aanu bilownay isla markiiba iyadoo backgroundka kalena SNM lagaga dhawaaqay London ayay u aragtay ayaa labadii la isku horiyay iyo wadaado kale dhalinyaro iyaguna wixii baa la diin bay isticmaalayaan xaggana jirta ha waan wahayn nima ka soo jeeda dowladda marka inta tiradiinu intee ahayd intii markii hore maxkamadda waxa la soo taagay 28 laakiin 20 baa la xukumay ma shir jirteen ma meelaad isugu wada tegi jirteen ma qoraal baad ahaydeen oo liis istabayaal baad ahaydeen mise waa la iska kiin maago waa la isugu keenay ma runtii muu jirin wax liis ahoo magacyo ku qoran oo la leeyahay waa group laakiin waxay ahayd niman asxaaba oo inta badan dibadda ka yimi marka dibadda markaan leeyahay qaar Yurub ka yimi qaar Mareykan ka yimi qaar Sacuudi Carabta ka yimi iyo qaar xamar ka soo guuray oo shaqaalihii macallimiinta iyo masalan dhaqaatiirtu badnaayeen markaan meeshii isku nimi waxaanu aragnay magaaladii aanu naqaanay oo iska daa wax kale markaan lagu yaray intii sida ahayd ka dib uga dhacday marka in badan baa markaa wixii la waday motionka kale guud ahaan ku dhex jirta markaasaan aan lagu bilownay annagoo gooniya marka waan wada fariisan jiray sida caadiga Soomaaliya dhaqanka ay leedahay wada qaysho wada fariisigaasi ayaan dabeetana sheekadaasi ku wadnay maxaa markaa dibadda idiin soo saaray oo leedku ogaaday inaad kooxtiin isku xidhan ama isla socota waxaan maleeyaa marka ugu horeysa waxa soo horta malaha indhuhuba nagu dhaceen way intaasoo nin oo dhalinyaro isku wada waqti oo debarba waqtiyo meel wada baabuurna wato oo magaranaysa magaalada ka dhex muuqda oo markaa dee aad oran karto waa indhihii inteeda xidhan maaha in kaloo xataa badanina ku jireen oo isku magaranaysaa aad moodo mawjad wada socota indhaha marka horeba dowladda waan ogolayn dee intaasoo kale inay isku tagto marka hore way ku dhacday laba waxaan oran karaa shaabadii ugu horeysay waxay nagu dhacday markii aanu nimankaa madaxda la doodnay iyo tidhaaheen meesha waxba looma qaban waxba ka dhiman dadku waxbay taban waxaad ka sheekaysaa markii adiga lagu qabtay halkay ahayd iyo meeshaad joogtay iyo wixii lagu qabtay iyo inkastoo muddo dheer ka dambeysay oo mararka qaarkood qofku markuu dhibaato soo maro aanay had iyo jeer fiicnayn in la xasuusiyo haddana adoo raalli naga ah maadaama ay caruurta yararee dambe iyo taariikh noqon karto sidaa laydinku qabtay iyo habka la isugu keenay halkii lagu geeyey iyo balanta sheekada ka sheekay maxaad ka xasuustaa waxaan ka xasuustaa marka hore anigoo ka yar duwanay sida lay qabtay waxay uga duwaneyd muddaa lay diiday aniga muddo bil ay haddaana kaba iyo badnayn oo aan ogaana in la xidhayo mar walba bakhaarkayga ay iman jireen nimanka nabad isku dayeen
marka la weydiiyo la yidhaha bahay baan garanaya allah naxariista mar weydiiyo ku ninka maxaa ka doonaysaa waxay ku yidhahan waxaad ku taraa saxaabtaadii oo xamar ka yimi ayaa ku doonayay markaa markii dambe waxay gaadheen sida xataa maxkamadaba ka sheegeen inay jiraan waaran meel walba inaanan ka bixi karin waxa xataa dhacay in laba qof gurigeyga ay usoo dhaceen sida mar walba qolo inta badan dadka badankiisa nimanka dhalinyarada la xidhay habeenimada la xidhay anigana gurigeyga ma yimaadeen markaa nin siciid la odhan jiray guriga markaa horta anigu habeenkaa waan ka maqnaa kolba meel baan seexan jiray ayaa la qaaday waxaa la geliyay nabad sugidda 3 cisho 4 cisho ku xidhnaa mar kale waxaa dhacay nin aanu saaxiib ahayn isaguna cabdalla la yidhaha intaan xafiis kale hablo ka shaqeynayay sheegeen waa qoladiiba halkan soo martay gaarigiisa dhuumashaad ku jirtay saaxiibada la bilaabay dhuumasha magaalada ku dhex dhuumay hawla aan markaa lahaa baan doonayay inaan dhameeyo laakiin diyaar baan ahayn la xidho markii aan saaxiibka cabdalle ayaan u bedelay gaariga cabdalle qabtay maalinta ilaa maalintaan soo baxay inkastoo waxba ku oogin oo wax kiisa aanay magaranaysaa ku qaadin ama torture aan soo marin haddana isigii gaariga way xidhnaayeen markii dambe markaan hawlaha ayaan markaa doonayso anigoo bakhaarka joogo sugaya ay igu yimaadeen markaas laga xidhay maxaa lagu yiri dabeed waxay soo kaxeeyay waxay markaa gaari Land Cruiser oo 2 nin oo nabad sugida iyo haddaan jeclahay 2 nin oo kale dhar cad oo iyagu laakiin ahaa police ayaa markaa yiri baasha cabdi showjigeyga ma garanay magacayga waxay garanay magacayga gaarigeyga ma yaqaan wuxuu yahay baasha cabdi yare ma taqaano marsan ku waaniga waxay yiraahdeen soo raac maxaa ahayd ma ku waxay nabad sugid baan way soo qaadeen dabeetana waxay geeyeen xaruntii nabad sugidda qol yar bay geeyeen qolkii 2 cisho mooy 3 cisho waxay ahayd ayaan biyo mooy wax kale leeyeen 3 cisho biyo iyo maalin baan maray raashin keenay way iyo leelkoon maalin habeen laga waqti way maalintii dambe ayaa markaa la igu yeeray wixii ahayd magaranaysaa waxaan wareys oo kale ma ay kaliya baarisa way oo dibatana iyagoo magaranaysaa group nimankii meesha nabad sugidda group xamarkii bay ahayd markaa nabad sugiddii Soomaaliya ma ahayn aamin Hargeysa ma ahayn qoloyn toos loogu keeno case kan loo soo diray ay markaa su'aalihii igu bilaabay way maxaa lagu weydiiyay markaa ugu adkaa waxa ugu weyn la weydiiyay waxa ahayd waxaan markaa iyagu ay shirka dhigayeen laakiin uu qayladaan haystay way waxa la maalintii halkaa ma joogtay ha baan hebel ma kula joogan ha baan maxaa ka sheegsatay wax walba waxa laga dhigay fixiyo dhan shir marka wixii waxa weeyaan qof waliba de kulba in ku kordhiyay igu horeeyay marka wixii oo iska wada dhan oo aan dafir bakaray ayaa midkii ka dambeysay ay si magaranaysaa weydiiyeen ta igu dareed laakiin waxa ahayd aniga runtii la ii garaacay la ii torture gareeyay aanu haystay la igu dilayo wuxuu ahaa markii la yidhi bamba turtay adiga lagu bamba turtay ana bamba turtay weligeena bamba ma arag midaan movie ka arkay mooyee marka ha bamba lagu tuuray Hargeysa waxaan malayaa 3 ama 4 meelood baa laga tuuray marka waxa la kuwaas ka dambeeyay kuwaas aniga iyo 3 nin oo kale markaa si xidhnaa igu horeeyay meel laba igu horeeyay midna markii dambe la keenay filaya adu anagoo 4 oo qoladan u faahimka xidhan ku jirta ayaa la nagu eedeeyay inaan bam tuuro marka aan ka adkaysan inta badan aniga la igu torture gareeyay inta badan la igu waraacay waa lagu dilay waqti dheer si xun la dilay waxa ahayd tababka tan hore aniga waxba bay lama ahayn labada waxa la yaab lahaa tii hore ila hawsha yar dil baa ahayd bankuna 2 sano baa tii bankuna lagu dilay tii kalena waxa weeyaan waxa yar u haystay dil baa ahayd soo tan bankuna xariga ugu weyn lagu qaaday 2 sano baa marka taa la igu ma helin way iga jabtay waxa la igu qaaday inaan kamid ahay urur xaaraana inaan ahay xubin firfircoon urur xaaraana oo ka soo horjeeda dawladda intee leeg baad haydeen markaa kooxdiina markaa howlo la qabtay ama la ururiyay waxa la ururiyay guud ahaan 8 baan ahay 8 kiilo wada saaxiib baadeen ma isku wada qolaad haydeen ma dad kala ka marray waqooyin baad haydeen ma cid kale idinku jirtay oo aragti idin la yeelatay oo midalan waxyaalaha tabashadan iyo waxaan la qabtay oo idin kala mid ahayd ama cusbitaalka noqoto ama meelaha kala baa ma gidiga horta wada reer waqooyi baan way waqooyi meel walba wada kaysay waxa ay ka sinaay waxa horta niman isku wada inta isku dhadow isku wada inta badan isku wada garanaysa waxa kaloon aanu ka sinayn xataa liiska ay iyagu markaa ma garanaysaa doonayeen ay doonayeen markii hore soo urursadeen
inkastoo xataa maxkamadda ku sheegay ana ku sheegi karin xataa wixii liis ku jiray laakiin aan garan karo nimo badan oo laga tago reer ahaan looga tagay waxa la doonayay in la reereeyo marka raggiinii saaxiibadii qaar baa laga reebay sida nimo badan oo reer awda lahaa ma boora maaha wala laga reebay inkastoo nin ay ku qaldameen la yiraahdo Dr. Tani oo isagu nala xidhnaa marka maxaa dhacay maxkamaddii marka la keenay oo maxkamad baa la keenay maxkamaddii markii la keenay sheekay ka dhalatay oo de aad ma garanaysaa arrinkeedu u kululaaday oo ma garanaysaa maxkamadda badbaadada la dhigay maalinta horta inta maxkamadda la doonayay in la geeyo anigu xataa maan kici karay waan gurguranay toojarka daraadii dabeeto waxa weeyaan anigoo xabaddu markay dhacday ugu horeysay waxay maalintii la lahaa inaan maxkamadda la nageeyo dib ardaydii kacday u gadooday magaalada la shiiday dabeetana askartii baa xabadda markii hore kor u ridaysay taasaan horta ku war helay in meeshii wax jiraan anuu sugay madaaqadiisa soo tagaysay bad waxaan dadkan maalintaa markaa maalin ka dambeysay iyo 2 cisho waxa ka dambeysay mooyahay maxkamaddii la keenay maxkamadda markaa waxa la keenay inteedii dhammaan eedeysaneeshadii iyo qoladinkiina basugido iyagu qolada qura ahaa wax nagu furaysay iyagoo nin baxs aan haynin oo ha markaatiga ugu weynaa meesha yaalay nin aan meesha joogin xataa in wadanka aan joogin oo loo jiray Cabdilaan Gare marka nimankaasi iyo markaatigoo dhamina markaa iskaga ka reebto waxay nabad sugidina kiina torture gareeyay ayuu baa isagana markaati nagu ahaa churchkii anigoo la garaacay oo aan kici karayn la ii keenay lahaa form ka saxiixeen diidayna maxkamaddu ii fadhiyay waa nin karimka maanta booliiska haysta la Shariifuna Sheekhuna ayuu la yiraahdo wuxuu booliis ciidamada haysta booliiska Soomaaliya oo churchna uu ahaa prosecutor uu ku maya prosecutor ma hay marka statement dadka inkastoo la yiri qaar baabanay u iman qolooyinkeeyii qaar churchka u yimaada marka uu waa statementka laga saxiixayo formal waa inuu ninkaasi ama lawyer ka jooga ama mesela prosecutor ama uu jooga churchku marka aniga churchka la igu yeeray last dayskii ugu dambeeyay markii intaan maxkamadda la geeyay ninkii iga saxiix lahayn aan diidanaa marka waxa ma saxiixin form kaliya saxiixo ii dhiibeen intii ilaahay akhri haddana maxkamaddii soo fadhiyay isagoo ahaa ninkii gudoomiyaha maxkamadda hal ugu xukumay marka adiga waxa lagu qaaday anaga keeskayga runtii waxaan wada badbaadiyay gidigayo nimankii dhalinyarada dhagaxaanta tuuray iyo dadkii kacay waxay wada ahaan lahayd in la wada dilo laakiin waxay u qaadan waa noqon waayeen sidii magaalada u kacday anigu markaa waxaan ahaa badankooda dadka inta badan waxaa lagu xugay 20 sanadood kuwa 20 ka mid ah 20 sanadood 20 sanadood markii la xukumay 20 baa ahayd intii la xukumay ma 20 ma la ku wada xukumay waxba ka dhinaa qaar maya waxaan u qaybsanay dhowr qoloy waxa ahayd 2 xabsi daa'im bay ahaayeen 3 ilaa 5 bay ahaayeen inteeda badan waxaan ahayd 20 ka yaa xabsi daa'im aha xabsi daa'im waxa Maxamed Baaruud iyo Axmed Jabare ayaa ahaa 8 sanadood bay xidhnaayeen ayaa lagu xukumay 3 kalena 3 sanadood baa lagu xidhay kuwa 8 ku xidhan iyo kuwa 3 ku xidhan iyagoo 20 jir oo noomay raacin xamar baa laga rabay 20 jir markaa goorma la digay waxa la nageeyay I think bahalkii 19 1982 bay ahayd markan maxkamadda 83 marka la digay almost a year baan ku jiray Hargeysa markaas la digay 20 jir markii la diisii waday ama la digeynay waliba hore ma maqashay ها أنا مركان national bed joogay national service bay daba joogtay ها ayaa ninaan saaxiibna hayban luugu ugu tagay nin kale waxaan ugu tagay xudur aan saaxiibna marka ka xudur baan maranayaan si maray marka iyadoo meesha marka under construction oo la dhisayo ayaan si maray oo leeyahay xabsi wala marka ma xabsi waan ogeyn dhismo dawladeed ma arkay bay dhabana magaranaysa guri alaabta markay magaranaysa biraha dhaadheer iyo meexaas xamar laga soo qaaday waan arki jiray markii dambe wadada geligeeda waa la xiray oo inta xal marka bay dhaba ka baxdo ee tagaysa xudur waxa la sii maraa ama waxa sii maraysa 20 jiro ama waajid baad maraysa tii 20 jiro waa la xiray waxa weeyaan dawladdu baa loo ogaatay 20 jiro laakiin waxa kale oo dhima xamii jiray markii dambe waajid
marka waxaad ka warantaa xabsiga saacaddii markii lagu geeyey waxay ahayd wixii lagugu qaaday dayuurad baad Hargeysa lagaa saaray mise baabuur Hargeysa waxa laga qaaday beebe baa noogu horeeyay way annaga ku xignay way oo markaa ciidan aan mid iyo laba wuxuu ahaa isluubta ku jira kuwii Hargeysa naga raacay jeelka ciidan kale oo koofiyo duubaho gaari ciid ka buuxaan uu nagu xigay beebe kale nagu xigay markaa beebeyada ay waxaan sii raacin ilaa intaan gaalkacayo gaalkacayo markaan gaarnay waxaan leeyahay malaha wadan kale aanu gallo anagoo kaliya oo ciidamadii waa naga reebay saasan xamar ku tagnay waxaan ku jiray dhowr cisho jeelkii dhexe xamar nimankii markaa waxa naga reebay xabsiga yaraa qolooyin markaa cirri gruubkiisii ahaa oo saraakiin cidina xukumin oo lix ah ayaa la nagu soo diray qolooyin inqilaabkii loo haystay laakiin xukunayn kuwii la dilay maaha kuwii ka soo haray waa haddana ay sii day waayeen oo lagu haysto iyagana reer ahaan reerkaasi nimankii meesha inqilaabka dhegayay baa ayay u xidhnaayeen nimankaasaa 20 jir markaa noo raacay intii 20 jir tagtay mise la hayeen markaa waxaanu ahayn markaa 6 ka reebto 14 maxaad ka xasuutaa ragga magacadoodii intay rag badan ma ka xasuustaa oo mas'uuliyiinta waa xasuustaa waxa ka ahaa koob misal maxamed baarud axmed jabane maxamed xaaji maxamuud dr taani axmed xuseen caabi dr cusmaan waxa ku jiray colaad cali adar allah naxariisto waa nin uu dhintay waxa ku jiray Yusuf Geed waxa ku jiray nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Masale waan badnayn marka saacadihii aad gasheen 20 jiro maxaad ka xasuutaa goormay waxaan ka xasuustaa gaari baa habeen baa lidii baroor baa tagteen ma subax horta habeenimo laga qaaday xamar way laakiin waa bari baanu galnay 20 jiro way gaari baa lagu qaaday kaarun bahalkii shabagla ah oo ciidanku leeyahay oo uu wato ninkii taliska marka dambe aanu garan doono inuu xerada haystay 20 jiro marka roob baa daayay xoogaa marka dib baan u dhacnay indhaha la naga xidhay markii la naga dejinay leedika dejinay dabeetana anagoo la dejiyay anagoo indhaha ka xidhan baa qof walba qolkiisii la geeyay markii hore marka dhowr muddo ah aanan saxayn taariikh waa waqtiga taariikhda baan garanayn inay 6 bilood ahayd 3 bilood ahayd garanayn laba nagu jiray markii hore meesha si aan u barano markaan xoogaa ku jiray nin walba qol baa la geeyay markii ugu horeysay indhaha la ka xidhay dabeedna meel baa lagu geliyay adoo indhaha ka xidhay qol baa la geliyay anoo indhaha ka xidhay qolkii baa la geeyay waa la igu xidhay qolkii haddana nin kale lagu keenay Axmed Jabaan aniga lagu keenay waa indhaha laga furay labadii waa qamla nagu siiyay intuu leeka qolka la ku xidhay qolkii ilaa imka ma qaldamo markaan kacay sigaarka cabayo ee aan soconayo haddaan istaagaba intii qolkii baan ka noqnoqdaa ya marka 5 talaabo sidaas iyo 5 talaabo sidaas ayuu maskaxdaad ku qabatay intuu leeka anoo baan soconaya intii hataa waxay ku bartay shaqaalaha gaalada inaan socodka 5 steps waxaan jiray waa 5 steps ilaa imka sida u socotaa ilaa imka intii baan socdaa hadaan kaligeeba taaganahay Allahu akbar inteed ku wada jirteen marka adiyo Axmed Jabane meesha waa tan aan ku leeyahay ma garan karo waqtiga ilaa 6 bilood ama sano laakiin wax ka yar baan filayaa marka maxaa la cunto balidisiin jiray say ahayd meeshu ciidanka idinleeyay ma asluubta ahayd mise ciidan kale ma xireen military baa xagga gudaha misan dibadda waxaan batalyan inuu deganaa dibadda ciidan beebeeyale oo taangiyale baa meesha joogay laakiin aan xirada soo gali jiray dusha anti aircraft arsibaad saaraa oo magaranaysa xerada lagu ilaalin jiray ciidan dhulba laakiin inta anaga noo soo gali jirtay waxay unug 10 ilaa 12 qof oo askar ah oo isku wada reera ama laba reer oo Cali Samatar iyo Maxamed Siyaad Barra reerahooda ka tirsan iyo laba sarkaal oo aan midna ugu tagalay jir midna waxaan ugu talagalaan ma ugu gala kabta kii markii ugu dambeeyay wuxuu ahaa Jana markaan ka soo baxay marka ma istaqaanin marka ma muddo had jirteen iyaga maya waa inaan yar oo aan waxa weyn intooda ban jaahiliina waana qoon badan lahayn laga dhaadhicilaa dawladda adeerka burkidaya marka wuxuu ku arkay adiga cadigooda koowaad marka nin iyo dhif malaydin ogolaa light ma lahayd meeshu toilet ma lahayd malaydin ogolaa inaad wax akhrisataan ma
toilet way lahayd oo waxay u lahayd si aanad uga bixin marka waad ku farxaysaa marka hore laakiin dib halka ugu weyn waa toilet ka leedahay waayo xataa kaadi waan baxay dib u oran kartid marka ha bugaag waxa la siiyay nin walba intii shindadiisa markaa ugu jirtay ayuu mar dambe la soo baxay waxyaabaha igu weynaayay misalan igu adkaa waxa ahayd markii anagay jabanaanu kala tagaynay ayaa waxaanu haysanaa maraya laba noofal iyo jariidad iyo kitaab quraan way markaanu noofalada aanu akhri badnaa intii aan meesha ku jiray isaguna kitaabku u badnaa inkastoo isbeeg weedaarin jiray maalintu ka baxay wili kitaabkan qaadan si baan ku ha dabta waxa ku leeyahay 15 qaadano in kala goyno uu muraado wuxuu quraanka kala jaraa hay doonta keentay baa ku demayna kala jirin quraanka laftiisii quraanku ma qaybsanay dabta markuu diiday isagaan siiyay markaanu ma haysan kitaab laakiin waxa haystay intii buugay inta buugta imisa sanad ku jirtay meesha 7 sano jiddo 7 sano sanadna hargeysa ku jiray marka ma lagu dilay mar inta ku dhex jirtay meesha leeyahay xukuumad tahay ma yaraatan jirin lagu dilay waxa la dilay markii aanu intii aan lagu soo xukuminay hore laakiin mar walba marka la noo yeelo waxa dilay ma ka war haysay marka cid kale oo ku xiran meesha intii mooyaane dad kale oo ku xiran 20 jiro ha sibaan u garan jiray waxa weeyaan binaadamku maskaxdiisu cajiib waxa weeyaan sanqadha marka raashinka waxa la sameeyaa kaaryoona lagu wadaa dadkan badan loo qaybinayo raashinka malqacada dhacaysa qam uu ku magaranaysa kirkidii ama wixii ma ku sinay kirkidii ayaa tirinaysa albaab walba halku istaa marka dadkaasi waa moogeen in dad badan ku jiraan kolba intii ku jirtay markii hore may badnayn misalna Ismaaciil Cali Abukar iyo Umar Artiye groupkoodii markay soo garan waanu garanay anigu kaliya anigu waan tiriyay in 12 yihiin iyo mooy tirada dhaqaankaasi malqacadaas ku garatay marka albaabka markii hore albaaha iyo albaabka laakiin ismeedaan arkin markii dibadda la idin ma saarin ma aniga hadii garka hadii timaha laga xirayo kuwa iyo kuwa kasta dibadda lagu xidho wixii aaga ka dhow laakiin waxaan ku noqdeen markii dambe Ismaaciil iyo Umar iyo idinkeedii la xidhaan iyaguna mise dhinac gooni ku xidhnaan ma isku laynin baa markii hore 20 jir waxa ku jireen godka dabatan markii dambe ayaa anaga lanoo keenay marka waxaan ku wada hadli jiray anaga qolooyinkeen groupkeedu gidaarkan garaac jiro si magaranaysa Morse code soo galmay diidaadi ayaan laba xaraf u sameeyay taasaan runtii aan waxaan qabanay badbaadisay waayo waxa weeyaan ku kaftamay wada hadlaysay wada hadlaynay waan ku kaftamay waxbaan isu sheegaynay qoladan Umar Artiyeena waanu barnay oo iyaguna iyaga marka ay sanamtiyo halka wax maraysideen oo sheeganay waxa ma aan weynay marka maxaad oran jirtay maxaad ku garanaysaa qofka gidaarka garaaciya wuxuu doonay waxaan ku garanaysaa laba cod baan sameeyay jiray mid fartan hore waa sanqar yar iyo halkan oo sanqar weyn sameynaysa marka imika si ay dhahdo waa dabeetan taasaan oranay waan dhameeyay kelmadii bid waa ta sid waa sida bid waa sida marka saasaan u wadnay marka dambe waxa arkaysaa adigoo sida tape magaranaysa dhidaari caadiga ah u garaacay speed ka kale ku fahmi marka isu soo baxdeen ee dambe waxaad isu sheekeynayeen kii kale qolo kale oo la sheekaysan saadaas oo kale u hadlayeen ma isfahmayseen marka ma ilahay war maxaad hadalka ay igu tiriyo saa igu tiriyo ha ma ismaana horta ma waxa sheegaysa inaad isfahamteen ha marka habeenka marka hadlaynaba waan arkayaan isfahmin rag baa noofala ku aqri rag baa xadiis iskaga jeedi jiray rag baa garanaysa reerahooda isbari jiray ya rag baa kaftan runtii waxay noo noqotay yaani inta adigu isla hadlay waa weyn oo barteen waa baa weyn oo baray wareebal waa kuma tahay iga xigow min aadan warsaba nagu koonay isaga baray marka aqoolinka xagaa jiro u gudbiyay aadan warsaba isaga qolada baray wala la soo day waxa la soo daayay 3 group baa la soo daayay dhamaantood 89 baa la soo daayay 98 aan waxaan aqoonida ugu dambeysay la soo daayay waxa way 3 group waxa maalaynay waxa qolay noo kala saaray de wax kale oo aan ugu oran karo xabsi ma ahan xariga inta dhererkiisa wax kale oo de lagu kala saaray bay ma jirin waxaan oran karayaa difcadaha waxay u kala horeysiyeen inaan xamar mar wada gelintiina wala qoladii waa weynid oo la sii daayay siyaasiyiinta marka anaga waxa weeyaan marka la sii daayay group walo kastaba de xamar oo dhan ma soo kacday oo meesha aan nimaadna xamar markii xabsiga laga soo daayay xagee lagu geeyay
suuqa lagu sii daayo maya maxamed siyaad barre noo geeyey markii hore haye isagaana cafiyey waxaa maxaa laga maxaa laydinku yidhi marka markii ugu horreysay waxay ahayd waxaan soo fadhiisanay meel waxaa lana fadhiisiyey fadhiya waay horta markii hore maanaan garanay in la naxil sii daynayo in la naxilayo waxaan xusuusnay xaggan waxaa anigu dhexdaan ku jiray gaari land cruiser dhinaca midigta waxaa iga xigay xuseen barbaraawi xagga midigtana jabana iga xigay waay marka xaggii unu socnay indhaha la naga soo xiray markii hore waay markaan meel bay dhaba qiyaastii u dhow joogno ayaa indhaha laga furo waxay dhahaan kaadkaajo waan soo baxnay markaa xuseen barbaraawi aa gujiyey wuxuu guhi waar baanshe markaan magaalada baydhabo soo galay magaalada maxaa ahayd markaa wuxuu ogaa inaan dee baydhabo ka shaqeyn jiray national markaas loo baydho may waa baydhabo ma tahay may baan ku uri baydhabo waxaa loo laydhay intuna may laegeen baydhabo waxay noqotay new york ilaa halkaad ka soo baxday ha ila waa meel madow ka soo baxday mawt waan xukun meeshana baydhabo jabana yidhi waxaan xukun oraa nairobi aynu soconaa iska adkaysta waxaanu galeen inayna sii daayey markaanu xamar nimay marka waanu garanay dhammaanteedna xamar waanu garanaynay markii dambena villa soomaaliya na geeyey markaasaa meel la fadhiisiyey marka madaxweyne markaa waddanka haystay maxamed siyaad barre ayaa lanoo geeyey aniga cabdiraxmaan masala iga horreeyay markaana kale ku xigay waay markuu dee muu filayn meel barendaa odaygii oo fadhiya wejiga ku dhuftay uu soo booday markaasuu war maxaa kugu maxaa dhacay odaygii markaa meesha fadhiya oo uu la fadhiyo ninkii markaa sheelka haystay dabeetana ninkiiba mar walba waxaa ninkiiba hadalka bilaabay tigina gaashaala sare markaa ahaa ee xabsigeedu ku hayay xabsi nagu hayay ati maxamed diiriyaa la odhan jiray waay ninkiibaa markaa nin walba magaranaysaa intuu xidhnaa iyo wixii dabeetana wuxuu cafis aan madaxweyne ku weydiinayaa dhalinyarada inaad cafido inaad cafiso inaad cafiso iyo lagu weydiinaya aa lagu weydiinaya madaxweyne waay dabeetana anigiibu nagu yihi haye maxaa ka qabtaa waay kolba nin baa hadlay aduu hadalkayga wuxuu markaa iskugu biyo shubanayay de anagu dembi maanaan gelin haddaanu galay haddaba marka intaasi dee in badan baabanu ku xidhnay soo maad garan maanaan gelin dee maantana maalin la is idhaahdo ma garanaysa dembi ma gashiye maad gelin maahaba ma aha anigu waxaan u qabnaa dee haddaanan gelina waan kulleyba waan xidhnaa waan xidhnaa dabeetana isaga hadalka u baxay markaa wuxuu yihi haddii horta anigu dadka ma xidho buuri anigu dadkan cafiya waay haddii ninkii xaakinkii maxkamadeedii xukuntay aydi ka gardarayd ninkaa iyo iyagii allahooda buuri waay haddii idinku aad dembi gasheenna ya idinkii allihiin anigu laakiin dadku maan cafiya waay markaa wuxuu ku xogsiiyey hargeysi iyo burco kuma taqaano waa gelalaf anigu gelalaftii waan kusoo booday markaad in badan xidhnaato maskaxdaada ugu yarbaxaysa sheekada ma dhegeysan kartid waayo in badan isla sheekaysanayay masaan maxay mas-uul warka magaaladeedu ka maqlay dabeetana wuxuu nagu waaniyey inaanaan ka qayb gelin magaranaysaa waxaad dooneyseen maya wuxuu yihi way dhaceen waxaad dooneyseen waa hesheen laakiin imika waxaad leedahay wax dhibaatoo dalka dambe ha u gelina dabeetana wuxuu na yidhi nimankii askartaha buu yihi dhalinyarada qaada markaa nina anaga naga mid ahaa waxaan jeclay in cabdiraxmaan masala ahaa ayaa yidhi war anagu reer hargeysmani anagu reer xamar ma nihine reer hargeysaanuna dee xamar haddaanu joogi jirayna dee guri kuma naan lahayna meel lagu hagaagaa ma jirto xaggeen xamar kugu hagaagi ama wadankiina aanu garanayna geeya de ama magaranay wadankiina geeyba markaa ayuu hadalka u dhigay markaa hudheelow kaleeyay hudheel aan malayna inuu xaggii garanmaa imika xamar halku ka ahaa ayaa dabeetana lana geeyey hudheelkii dee niman waxaanu nahay jeel ka soo baxay waxaan war magaalada galno waa 3 habeenimo 3 subaxnimo dabeetana suuqaan soo galay waay meel walba way xidhan tahay meel bibita ayaanu soo galay waay 5,000 shilin la siiyana jeebadaan ku siiyay 5,000 shilin malisi markii gidigay malaha 5,000 baa la siiyay 5,000 malisi waay anaga 5,000 lacag weyn baa ahayd markaas imsaada ahayd markaa intiina markaa wada socotay intaas waxaan ahayd 6 baan maranaya waay groupkii kale wixii hore waa naga horeeyay intii baan markaa isnii xogaa wax kale ma waleysaan biseer iyo caana iyo koob shaah iyo xagaas lacagtaan haysanay intii ka badsay ninkii uu la gartay inaan adduunyada markaa inaan duli kale ka tahay inaan duli kale ma garanaysaa
war xaggee ka timaadeen waa wejigaygu waa beel cadceed maanaan arag dharkaanu xiranay waa kuwii cagaha waaweynaaye dee istaalkii berigii hore socday war xaggee ka timaadeen buu masaanu ku yidhi 20 inaan lacagtiina qaato wey laakiin waanu siinay aroonimada markaa soo baxnay makhaayadii nuur yare ayaanu helay dabeetana tiiba dadkoo dhami qof walba markaa cid baa ka haystay intaa intii ka dambeysay runtii waa sheeko adag oo maaragtay ku saabsan nolol dhan oo qaybtaada ka mida iyo wixii ku soo maray iyo sidaad ahayd iyo wixii dhacay waxa weeyaan wixii aad bilowdeen goormaad ogaateen in Hargeysa la burburiyey oo burca baaba'day oo adduunka lagu kala tegay oo goormaad ogaateen de maxamed siyaar bare noo sheegay horta maxamed siyaar bare ayaa dagaalka aniga waxaan ugu dambeysay de SNM markaa lagu dhawaaqay oo saraakiishii ugu horeysay ay markaa baxeen yaa ugu dambeysay dadkii maxay idin sheegeen markaad magaalada ugu timaadeen iyaguna infact markaa waxa loo dhiibay horta anigu package baa la ii dhiibay nimaan saaxiib ahayn oo markaa groupkii ka mid ahaa ayaa sheekadii oo dhan ii dhiibay mar kaliya SNMT markii waxa ma 25 nin intaan weydiiyey waxaan jeclay 3 baa ka noolaa dabeetana waan suuxay hebel waan suuxay literally oo waan I fainted out markaa markii dambe dhakhtarkii suuxnimada wuxuu igu yiri wareer dhageyso sheekadaha dhageysan sheekay wuxuu igu yiri meesha buuqana iska ilaali yaa dimiyan iska ilaalin kara dadkii wal baa kugu soo cararay laakiin ku isku maana xanuunkii mar labaad wala uu sheegay dhulkii lagu kala tagay wala wax walba ee sanadkii dadkii qaxay inkaarihi dhacay yaa xageed qabatay markaa intii ka dambeysay goobla dibadda soo baxday dibadda waxa ka soo baxay wax yar dibadeed waay horta waan guursaday waay waxyaabaha la yaabka leh arko waxa weeye markii aanu jeelka ku xidhnaaday waxaan ogaaday ruuxa quriyaha kugu lamaan adduunyada ee aan ka hadhayn markay dhibaato kugu dhacdo ila xaaskaaga tahay marka nimankii xaaska la laakiin waxa kale ogaaday inay naga warwar badnaayeen naga caruur iyo dumar bay ka tageen laakiin waxaan markii aan jeel ku jiray wallahi inaan mar dambe hadii ay dhacdo cidla dambe yaa lagu xidhay wiiga loo joogay mooy 10 cisho waxaan joogay ma sha Allah dabeetana wax yar kadibna xajkii markaa soo baxay baan raacay baasaboor baa la ii keenay aanan garanayn goorta la qoray sawirka goorta la iga qaaday meesha aan joogay sawirka meesha ahaa sawirin baa la ii dhiibay qolooyinkii magaranaysa xamar jooga oo niman aad u dadaal badan ah runtii dabeetana sawirkii baa la ii dhiibay marka aniga 3 nin aniga iyo Yuusuf Geed iyo Xuseen Barbaraawe Xuseen Maxamed Ducaale ayaa markaa tagnay Sacuudiga halkii baan xajkii tagnay dabeetana markii dambe qolooyinkii kale muddo markaan joognay Djibouti ugu nimid intayda kale iyo Djibouti soo baxay goorma Hargeysa tagtay ama SNMT ma tagtay ha markaa SNMT baan tagay actually markaa waxaanu tagnay safaaradda Mareykanka oo markii horeba nagu tiri hataa soo baxdaan anaga ay siinna political asylum waay marka waxay doonayeen inaan dhax soo baxno marka anaga hortaan dadkii soo aragno marka waxaan u wada baxnay qaaxo dhulka oo dhan baan soo maray waxaan qaban karinay waan u qabanay abaabul ama magaranaysaa wacyi gelina dabeetana markii dambe aan soo noqonay aan waxaan ka baxay markaa almost mararkii la qabanayay soo galay wadanka 1991 baan baxay Mareykan baan tagay California aan tagay markaan California tagay gabadhii hore aan caruur lahayn markaa baan qabso waan guursaday waxaan islahaa markaa meesha tag gabadhuna waxa weeyaan kaga imo iyo welfare bay qaadanaysaa oo lacag baa la siinaya aniguna caafimaadkayga soo baray dabeetana soo noqay oo qorshahayga laakiin waxaan ogaaday gabadhii inaan welfare la siinayn marka waxay noqotay sheekadii ma inaad adigu ma waxaad yeeshaa gabadhan meel kale u geeshaa welfare de dambi baa kaaga jiray waa qof mas'uul baad ka tahay maya ما أنتي أنت هيك فكر أنتي أنا ودني بقبل أنا بعيد لك مثلا هذا أنتي نحكي لك جتيا مركا واحد قاصدي بالهرت أنت واحد مقرن إنسان سين غنيا دي بسكول كي يقولوا إذا أنا شعب بانكون غلا واحد برتي أي تي يو مقرن إنسان لما ما يشرب سمية أو مدنا يهاي عدو يسلك لما ده كمبيوتر كي واي لما تبغى كل شيء مدبر ما شقيني ما شاء الله وحير مركان بعد يقول فا وذي بقى شكل عاصمة ترى قبل هذا لما تودن كي واحد كله قضي صدق بلو لو 2001 كي لو كون يا كودي يا وده كله قضي يا كله إما كان سوى الصعيد يعني
iyaad hadda doonaysa bal doonaysa inaan dib u soo noqon haddii ay haddaan magaaladu yeeriin ما شاء الله باشا عبد يوسف waxa weeyaan waxaad soo martay sheeko dheer oo kolay rag badan oo saaxiibadaahina ay wax kula wadaagaan ma damacsan tahay inaad wax ka qorto waayaha aad soo martay horta inkastoo horta waxaa jira nin baa ka qoray in fact case la ilaa ufo nin anigu aan hore u aqoon aan bartay intii ma garanaysaa case-ku jaamac muuse jaamac in fact buug weyn arday macallimiintiisii baa la xidhay imikana qoraa weyn buu noqday ninkaasi buug caaqiba leh ayuu idinka qoray ayuu naga qoray oo aan ahayn sinaba u siyaasadayn maxamed baaruud laftiisu buug maxamed baaruud buug buu qoray isaguna dhawaana buuggan laakiin maxamed baaruud waxaad moodaa biography badan ayaa ku jira buuggan waa biyuul uf xarigaa wixii sida u dhacay iyo maxkamadii iyo ragga qaarkood oo markaa isagu arkay anigu iga apologize gareeyay waa ilamu soo xiriirin markuu buugga qorayay nambarkayga waayay laakiin niman kale oo ufa ayuu ma garanaysaa wadankii qalalaasihii aad ka bilowdeen ama idinku wax tarays dhaha ama waxaytayo waxaad ka xuntihiin ama is leedahay qalad baad samayseen oo sabab baad u ahaydeen dhibaatada meesha ka dhacday ma jirta horta marka hore guud ahaan waa maya haddii la yidhaha maanta ku celiyaan ku celin lahaa laba waxa qulahe haddaan sabab u ahay waxa koonfur ka dhacay haddaan anigu sababteeda lahaa oo laga yaaba dee inay ahayd wax jaynahoo isku xiga hadday taasi ahaan lahayd waxaan anigu ka mas-uulahay taa waan ka xumaan lahaa laakiin waqooyiga wixii ka dhacay waa dhabhaa ummad waxa weye waxaynu nahay noolamaynu u diyaar gareey inaynu rogno dhalinyarteennii baynu u leynay waxa weeyaan waa layna garaacay laakiin waxaasoo dhami inaynu ka go-no inaynu ka xorowno ayaa ka faa'iido badneed waxaan qabaa waxaan diyaar u ahaan lahaa haddaan sababtooda leeyahay mar labaad ma samayn lahaa maanta somaliland baa la yidhaha dalkii dowlad bay leedahay baarlamaan bay leedahay laakiin adduunyadu ma ictiraafin weli soomaaliyana sidaad sheegayso dhibaata ka dhacday weyn maanta gurmad in adduunyadu gurmato oo la yidhaha warbal nidaam iyo waxa loo sameeya bay maraysaa labadii qolana wada hadla baa laleeyahy imika oo ama idinku is ictiraafa ama si kala yeele maxaad kula talin lahayd ugu dambaystii somaliland iyo soomaaliya ood odhan lahayd ha yeele maadaama aad ka mid tahay ragga taariikh ahaan dee dhibaatada usoo martay ee ay muddadaa dheer ku qaadatay in magaranaysa uu dib usoo qaban karo wixii soo gaadhay horta waxa weeyaan mashkiladda ugu weyn meesha taala markaa aragtay soomaaliya iyo somaliland lixdankii marka la isku daray runtii qaladaad badan baa dhacay qaladaadkaasi wakti way u baahnaa in la soxo way saxmi waaye somaliland magacan la yidhahdo horta marka hore wuxuu ka yimi waxaynu xornimada ku helnay markii 4 bilood aynu haysanay waxaynu state of somaliland koonfur horta waa inay ogaato waa inayna koonfureed waa inay ogaato horta marka ugu horse laba wadano isku darsadaynu nahay kana la bixi karaa heshiina karaa laba conceptkii odayaashii aabayaasheen ama awooyadeen ay waddanka isku dareen anu kama soo horjeedo waktigoodii iyagay taladu u taalay waxay arkayeen bay arkayeen danta ay arkayeen inay waddanka isku daraan way isku dareen inta badanana ahayd waddanka kilalka Ethiopia ee la naga haysto waxa qulahe aan anigu marka iyo in Soomaalida la isu keeno shantii Soomaaliyeed la isu keeno tii way socon weyday qaladka waxa la ogaaday marka ma ahan inagu inaynu ogaanay koob iyo lixdankii maalintan isku darsanayba waa la ogaaday koob iyo lixdankii kacaan waxa ka dhacay inqilaab ilaa iyo maalinta nin kastoo wax garasho leh oo ruuqooy waxaan u qabay anigu aan u haystaa inuu doonayo wixii in la saxo kala goyn meesha may ool oo may muuqan sida wax loo kala goyn karaa aysan markii lahaa may muuqan oo ruuqooygu gaar u xoroobi karo koonfurna ololi doonto wada hadal aanu jiri karin cidina ma sii arkeen waxaan waxa ahayd marka ugu horeysa dadku waxay doonayeen in wadankii laga bedelo markaa maamulkii jiray oo in fact aad u dhibaato badnaa laba in wadanka lagu celiyo 60 halkii maray ninka ugu fogay dib ha loo saxo ayaa ahayd horta colaad ma ahayd colaadda ugu weyn dadku waxay gashay Somaliland especially khaasatan
markaa qolooyinkii snmta ahaa markaad arki waayeen nin soomaaliya oo aan marnaba odhan xataa mudaharaad magaalo yar kale ka dhigin dadka qaar baa kulama baqanay waraba lay dilay maxaad baqanaysaa adigu xataa kuwii dibadda joogay aqoonta lahaa badankooda wax xumaan ka qormay wax wanaagsan ka qormay jireen snmt ama nimankii dagaalamayay taasi colaad gaar ahaaneed bay gelisay qolooyinkii markaa inaanay soomaali ahaynba ayaad yar moodeynayeen rumaysteen ta ka sii darani waxa weeyaan markaa markii somaliland ay timi koonfur baa iyaduna baabaaday oo dhibaato aad oran karto xataa tii somaliland tu ka sii daran oo ka riiq dheer oo aan waxbaba xeerinayn oo umuldooxa ayaa ka dhacay wixii markaa sidii isku imanaya horta way fogtay 21 sanood baa ka soo wareegay runta marka lagu noqdo laba wadan 21 kala sanood kala socda sidii isku tagaa way adag tahay waxay u baahan tahay wax badan oo la daweeyo marka anigu waxa oran lahaa horta koonfuri waa inay ogaataa in laga bixi karo oo dee laba wadan la kala noqon karo 60kii caalam baynu geynay caalam baynu saareen ayna inagu lahayn مثلا إنك كوب إمك هذا يقول لي كوب 1960 26 جون على كي أنو صاري سوماليا على كسوماليا هذه إنه ما ينال هاي حمر روح كدقنا إلى 1954 كي على كسوماليا أي مكان كان على كان حدك كي بلوغا كي يونايتد نيشنز كا يكي تليانيا إلا أنت ترسيش بقاتل على سوماليا دو سماستي على كاسي كل حروبين 26 جون ما كان إنه صاري بين بينسو شيئين nimankii gabi waxay u haysteen in Soomaalidii ma garanaysaa odayaashii markaa meesha Hargeysa burciyo meel walba calan ka saaray in calankan xoreynay laakiin calanku xorobay first job because calan lahayd waxa dhaami lahaa maalinta xabaalaha in calan kuwa laalaada ka soo qaadano oo aanu saarno hadii maantana waxa weeye aniga ila tahay horta marka horeysa in la kala tago laba wadan la kala noqdo aynu dib dambayso qolo waliba iskeed isu dhisto psychologically iyo magaranaysa box shit maado dadku dib u doontaan aayahooda waxay yeelayaan laakiin imika hadii la isku noqdo mashkilad mooy wax wanaag keenaysa markaa ka soo socda ma jiraan aad iyo aad baad mahadsantahay baasha